walaalnimo iyo wanaagu inay wada ku ahaato wax weeyaan naad u fiican waliba si qurux badnaato markii la isweeshanayo wax weydiintiyo ogaalka wax sheegiyo talada fiican walaalnimo الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. والله خذ معنا كالدق وإن صوك عاد ما شاء الله إلهي معدي سوى عجيب ما شاء الله والمرة هيك قارسنا هاي لا ما حدا يسكله وانا كعب صار لطنا وصار على السنة تلقى في سنة إن شاء الله وانا محمد إله ما هاد إسكالي ما أنت نولشان إني معدان إيو فرحدان أنا هايستو شالي ما هيسنين وحانها عصير ما توقع هاي تاجر لكن تاجرني ماذا وحنا من سنة إنه ربي سي وحنا من سنة شالي إنه عصير ربي قديق واي ابن آدم كدن إنت سؤال من إلهي وحاجر قوة ما أنت عصير ha aaminaan inuu rabbi saa ugu talagalay waxaa jira kuwa maan taajiriin ha aaminaan inuu rabbi saa ugu talagalay haddaad ka sarreysa caseeyaha ogow ilaahigii caseeye ka dhigay adigana taajir kaa dhigay wuu idiin wada siman yahay idinma kala jeclo laakiin midba midka kale inuu ka cibro qaadato caseeye wuxuu ka walwalsan yahay sababtu uu caseeyaasi u yahay adigana aad taajir u tahay adigana waxaad ku digataa sababtoo caseeye u yahay awgeed adigana aad taajirta ma wanaagsano noloshu mar walba waxay u baahan tahay dulqaad samir istixgelin hadda caseeye shalay ahaa maanta waxaa ahayd taajir mar buu ku wanaajiyaa waqtigu ku hiliyaa walaalkii kaa dhigtaa sidii waqalkuuda waa xaqiiq jirta أنا اللي قرين كريم مرو كوناجينا وقتها مرو كحمينا وقتها لكن واحد والبو وحا حكم قرارك ربي
iyo calafkaaga buu taajir ah haddar yeelo kuwa ka hooseeya qof walba faqiir ah ha xushmeeyo qofka ka sarreeya ana aamino darajada qofkaas uu leeyahay ilaahay inuu siiyey maanta asigana uu joogi karo mandiqaas insha Allah qof walba bini aadan ah oo ifka ku nool waxa uu rajeynaa nolol farxad leh haseeyaha haado maal qabeen ku cibra qaado shalay meeshan joogay iyo meesha maanta joogay cafi qof walba guusha ugu weyn ee qof bini aadan gaaro waa inaa cafisaa cafiska waa waxa ugu weyn ama la hantiyo ama guul la sheegan karo ee la gaaro waxaan cafiyay dhammaan qof walba oo igu dhibaateeyay casaynimadaas waxaan soo dhaweynaa anoo taajir ah qof walba oo igu dhibaateeyay casaynimadeeda insha Allah hadda waqtiga igu socdo ayaan sugay inaan kalimaanid gareeyo hawlahaygii waxaan rajeynaa inaan hawlahayga soo qabsado si aan dulmi lahayn aanan dulminaynin qof ilaahow laga saari karo nolosha wax kala sameeyna ma garanay inankii yaraana waa weynay booskiina uu noo diiday maxaan kala sameeynaa walaal Allah walaalo walaal ma fiican tahay walaal biliis nacafi waa ku baraya walaalo waxay ugu dhacay noloshiin saamaxa ka dhigay walaal waa ku baraya nacafi walaalo nolosha naga saar leeban ku gudaarinay booski xataa gurigiisa waa tagnay wuxuu noogu yiri isaga meesha doonti ka soo raadiya wala waa ku barna biliisna cafi saan kaaga fadhina wala nolosheeda saasa wala u dambeysay isbedel maalin ka dambaysa hoos u sii dhacaysa ma ogaatay nafsiga yahay waxa xaqiiqo soo baxay mar walba wax kasta wala waa ogaanay biliis wala iska cafi nolosha naga bixi waa ku baraya wala macaan intii lacagta hadii lagu tuntay inay tahay rafaad waa ogaaday wax walba walaalo markaas joogto rabbi ku waa ognahay ha wax walba nolosha oo dhan waa soo aragnay walaal maanta baryo wala meesha kula fadhina
qof qalbi fiican baa tahay qof wanaagsan baa tahay booski aa muxuu idin garab qaban waaye booski walaal horumarkii idin gaarsiiyay hadda muxuu idin garab istaagay booski wuxuu noogu yiri inankii yaraay aad ku digateen waa inaad cafiska ka soo bixsan waxa idin ciqaabaya waa miskiinkii yaraay aad saa u gasheen marka asagoo inaad cafis soo weysaan kadib aan meeshan idinka kaxaynaya buu dhahay marka walaadigii waa kuugu daalay hadda meeshan iska fadhin dirilay hadda waadigana la kulmay oo ku baryana walaal macaan aniga hadda gaariga saarnaa waxa ka imaaday shaqadii rasmiga ahayd waxa waaye noloshu mar walba in aad qofka walaalka ku digato waa wax aad ugu liita guusha ugu weyn qof bini'aadan gaarana waa cafis waxaan rajeynayaa inaad dhankayga cafis ka tahaan maadaama maanta idinka sarreeyana aanan idinku diginno idin garab qabto maanta waxaa joogaa waqti isku filnaansho ah maanta waxaa joogaa waqti noloshayda ee farxad meeshii ugu dambaysatay alxamdulilah ilaahan ku shukrinayaa adinka nafsiga idinka galayna waxaan rajeynayaa inaa idin cafiyo cafis kaamil ah ilaahay weydiista cafis saa aniga ii weydiisatay mar walba waxaa mudan in marka hore cafis la weydiisto ilaahay sababtoo ah ilaahay hantidii idin siiyey ayaad si qaldan inaad masaakiinta ku dhibaataysaan ugu tagrafalsheen waa mahadsantahay walaal waan idin wadayaa hadda ma awoodo inaan idinkaga tago nolosha noocaan ah aniga haddaa igaga tagteen nolosha noocaan ah anigay ma awoodo mana idin qalmo inaan idinkaga tago noloshaan noocaan ah soo baxa raaca gaarigayga mahadsanid walaal ilaahay jari xasanada ka siiyo abaalkaaga ma gudi karno wallaahi walaal abaalkaaga ma gudi karno mid ii ballan qaad hay walaal adigana mid ii ballan qaad cafisku ha ku ahaado guusha iyo furaha noloshaada mid labaad ii ballan qaad qofka hooseeyo weligaa ugu digan qofka hooseeyo weligii qof iga hooseeyo ma ku diganay inaan wax u qabto mooyaan weligii walaalnimo iyo wanaagu inay wada ku ahaato wax weeyaan inaad u fiican weliba si qurux badnaato markii la isweeshanayo wax weydiintiyo ogaalka wax sheegiyo talada fiican walaalnimo buuxda weeye walaalnimo iyo wanaagu inay wada ku ahaato wax weeyaan inaad u fiican weliba si qurux badnaato markii la isweeshanayo wax weydiintiyo ogaalka wax sheegiyo talada fiican walaalnimo buuxda weeye ifka lagu yahay walaal ifka laysweheshadaa ifka wax laysugu taraay alla ifka lagu yahay walaal ifka laysweheshadaa ifka wax laysugu taraay walaalka kaa filaaye inaad wax u sii taraysid haddaad noloshiisa wiiqdid walee waxun baad samaysay warkayguna waa xusuusin wanad waa iga dardaaran walaal sidaadii la weyn tahay wax weeyaan si cajiiba walaalka kaa filaaye inaad wax u sii taraysid haddaad noloshiisa wiiqdid walee waxun baad samaysay warkayguna waa xusuusin wanad waa iga dardaaran walaal sidaadii la weyn tahay wax weeyaan si cajiiba ifka lagu yahay walaal ifka laysweheshadaa ifka wax laysugu taraay alla ifka lagu yahay soo dhawaada walaal soo fariista soo dhawaada gurigan waa gurigiinii qasrigan waa qasrigiinii si walba anigii xumayseen haddana waxaan nahay walaalkii waxaa waaye walaaltinimadu iyo wehelka soomaalinimo islaamnimo dhiignimo dhacannimo waa waxaan lama huraana qofka bini'aadanka wuu qaldami karaa qofka bini'aadanka waxa ugu sameeya
waxa uu sameeyo waxa ugu weyn waa inuu qof bini aadan oo kale asay ah caafiyo ilaaha wax marka soo dhawaada idin leeyahay qasrigan anaa degan saanuye maasha allah daraadir diya jiife laakiin alxamdulilah ilaaha ku joodiye maanta nolosheedu isbedeshay heerkaan u gaaray marka waxaa idin leeyahay maadaama nolosheeda heerkaa gaaray inuu xarijeynaa camal qaadasho intaan idinku noqoto ninka aad dhibaatayseen aad rafaadayseen aad xumaantoogaad u geysteen haddana qasrigu asiga leeyahay ayaa maanta dhex fadhisaan unan idinku digan daraadna ninka heerka ogaata idin gaarsiiyey ayaa haddana hoostaan idin keeno micnaheeda maaha si inuu awood u leeyahay inuu hoos idin keeno laakiin allah subxaanahu watacaala xaggiisii ka qorneed inaad wixii rabbi qoray aad ku samartaan soo dhawaada gurigan gurigiina waaye waa dhownahay walaalo booska anaa waa insha allah wada imaanayaa waxaa waaye inaa aniga calin idin cafiyo waan u sheegayaa dee waa wada noolaanayna abaayana waa arkaa duruuf aad adaga ka muuqdo abuu adigana waa ku arkaa duruuf oo aad iyo aad u xunaan ma istaahilin inaad duruuftan gashaan waxaad tihiin dad qiimo leh dad naftooda ay tahay in la ilaaliyo weligoo gabdhaha soomaaliyeed waa dheeman waa lama helaan waxaa waaye lama huraan waxaa waaye wax walba leeyihin in la ilaaliyo laakiin dayaca ay mutaysatay waa mid ay gacmaheedii ku geysatay looga jiraya nafsiga gashay waa idin cafiyey maanta waxay ka bilaawdana qasrigaana ku wada noolaan doonaa ku wada baashaari doonaa ku wada farxi doonaa walaala isjecel ku noqon doonaa adigana kac soo qodiso baayaa iyadana soo meelato gurigiina waaye insha allah labadaas qolkaad ka jeceshihiin ka daga haye walaalo mahadsanid walaalo qaalin hadda aan soo koobi karno dhimale caadiya waxaas gurigiina waaye hamarugoonina farxa shalay waa qaldaneedeen anaa igu qaldanteen maanta anaa idin saxaayo idin toosinayo haddaanan ani idin toosin ma jiri lahayn qof idin toosiya walaaltinimadu waa wax sheegayihiin marka soo nasta insha allah iska nasta quraac haye walaalo qaali mahadsanid gurigaada taan ka seexda qolkaas